Assalaamu calaykum. Ma is aragtaa adigoo wax badan fikiray balse weli aan natiijo u jeedin? Ma is aragtaa adigoo lagaa sugayo imtixaan diyaaris balse weli aysan waxba kuu diyaarsanayn? Ma aragtay adigoo meel cidla taagan asaagaana horumar tiigsaday? Ma is aragtaa adigoo ku nool nolol aad ku qanacsanayn oo aad rabtay meeshaad maanta joogto meel ka sarreysa? Maxaad sugaysaa? Ma nasiib baad sugaysaa inuu cagiisa kugu soo doonto? Waa maya. Nasiibku wuxuu saacidaa dadka sida saayidka u shaqeeya, maahan dadka laciifka ah. Ha u ogolaanin naftaada inay xakameeyaan qodobadan. Haddii aad doonaysid inaad ku noolaato nolol aad u sarreyso, ha u ogolaanin naftaada inay ku xakameeyaan qodobadan. Weligaa iska ilaali. Qodobka koowaad, dad badan oo adduunka ku nool waxay waqtiyadooda ku qarash gareeyaan xasuusta waxa ku dhacay naftooda, kana walwalaan mar kasta. Inaad xasuusataa wax horay kuugu dhacay waa waxa naftaada xayiraaya, dib u dhacana kugu keenaya. Xasuuso waxa soo socdo, mustaqbalka soo socda, nolosha quruxda badan oo ku sugaysa. Waa inaad horay uga socotaa, ha u joojinin. Madaxaaga kor u qaad, fiiri jaranjarada kaa horeyso. Inaad ka tagtaa maalmaha madow ee ka dambeeya noloshaada kaama xayirayso ama kaama hor istaagayso mustaqbalkaaga ifaya ee kugu soo wajahan. Ka soco waqtiyada madow ee noloshaada. Diiradda saaro sidaad u dhisi lahayd noloshaada. Bilow hadda, dib ha u dhigin. Qodobka labaad, ha dhegaysanin waxay ku dhahayaan dadka kale hadalladooda inay kaantaroolaan jihada ay u socoto noloshaada. Weligaa yuusan ku niyad jabin qof kale hadalkiisa, waayo qofka doonaya inuu guul gaaro waa adiga, maahan qofka kale. Baahida aad qabtid iyo dareenka aad doonaysid inaad ka dhabaysid ayaa sabab u noqonaya waddada aad maraysid. Yeelo hadaf cad oo kuu degsan, kaasoo aad doonaysid inaad maalin gaarto. Inta aadan wax walba samayn ka hor, weydii nafsadaada oo su'aal: waa maxay waxaan u samaynayo waxaan? Ma iska samaynayaa mise ujeed baan leeyahay? Xaggee baan u socdaa? Yaanahay aniga marka hore? Who am I? Waxaad ahayd mid dhashay isagoo ah qaas unique sabab awgeed. Ilaahay ayaa kaa dhigay qaas. Waxaa kugu qarsan awoodo aadan ogeyn. Isticmaal awoodahaaga. Waxaa tahay cajiib. Dadku waxay dhashaan ayagoon istaagi karin, balse adigu waxaad dhalatay adigoo kale istaagidda. Waa inaad Ilaahay u mahad celisaa awooduhu ku siiyey. Waa inaad jeclaataa naftaada. Qodobka saddexaad, ha u ogolaanin naftaada inay noqoto mid ay xadidaan waxa adigu si xadidan u aaminsan tahay. Hadda ayaan kaaga digayaa midaas. Tusaale ahaan, waxa aad aaminsan tahay haddii aad xirato shaati buluuga waad ku soo baxaysaa, dadkuna way kugu ammaanayaan. Balse haddii aad xirato shaati cagaara kuma soo baxaysid, dadkuna kuguma ammaanayaan. Waa khalad midaas. Iska ilaali, iska ilow, waayo waxaa tahay cajiib. Wax walbana waad ku soo baxaysaa. Haddii aad aaminto xadidiyada noocaas oo kale ah, weligaa ma gaaraysid riyadaada, waayo waxaa ku xadidaya dareen adiga kuu qaasa. Kaliya ogow waxaad si gaar ah u aaminsan tahay, balse ha ku dhaqmin. Aaminsanow wax walba inay macquul yihiin. Markaas awooddaadu waa midaan xadidnayn, waanaad gaari kartaa hadafkaaga. Ogow inay caqabado imaanayso, balse waa inaad u diyaar garowdaa sidaad uga gudbi lahayd. Dhiirigelintu waa sida cunto maskaxda la siinayo. Kagama dhargaysid hal fadhi. Waa inaad ku soo noqnoqotaa oo badisaa. Dhiirigelintu waa dhaqaajiyaha naftaada, waana kan sabab u noqdo inuu qofku uu qabto hawl heerkeedu aad u sarreeyo, gaarsiiyana natiijo aad u weyn. Waana furaha keena inuu qofku gaaro guul. Ogsoonow, gaarigu ma socdo bilaa shidaal. Dadkuna waa sidaas oo kale. Guul ma gaaraan ilaa ay helaan dhaqaajiye. Miyaadan isdhiirigelin karin? Sidee u samayn kartaa dhiirigelin joogto ah? Haa, waad isdhiirigelin kartaa, waanad samayn kartaa adigoo adeegsanaya qodobadan. Naftaada ku kalsoonow. Waqtigaaga ka faa'iideyso. Warqad ku qoro waxyaabaha ku dhiirigelinaya. Dhagayso muxaadarooyinka ku dhiirigelinaya. Aragti fog yeelo hadaf cad. Naftaada adigu dhiirigeli adigoo u adeegsanayo hadallo dhiirigelin ah. Kuna dheh, waad guulaysan kartaa. Waan awoodaa, waan samayn karaa. I can. Ha cabsan, waad kartaa. Waad baran kartaa. Isku day. Haliyey ayaa tahay. Way fududdahay. Hormuud ayaa tahay. Waad ka soo bixi kartaa. Waad samayn kartaa. Horay u soco. Karti ayaad leedahay. Way dhib yar tahay. Ma adka waxaan, waa la samayn karaa. Waa maxay waxaan ku faraxsanahay maanta? Waa maxay sababta aan waxaan ugu faraxsanahay maanta? Maxay tahay waxa farxadayda keeni kara? Walaal, kalsoonida nafta waa furaha guusha. Haddii aan tusaale u soo qaadanno aktarka la yiraahdo Jackie Chan, waxaa hadalladii laga qoray ka mid ah. Wuxuu yiri, waad noqon kartaa wax walba aad doonaysid, balse marna ma noqon kartid sida Jackie Chan oo kale. Waa maxay sababta uu saas u dhahay Jackie Chan? Waayo wuxuu ku kalsoon yahay naftiisa.
isagaa aaminsan inuusan qofna ka sarrayn. sidaasoo kale aamin walaal inuusan shakhsi kaa sarrayn. weligaana dadka ha xasdin. haddaad aragto qof walaalkaa ah oo horumar gaaray ku dhiirigeli, balse ha ku dhihin hadallada xun. ku kalsoonow naftaada, aamin awoodahaaga Rabbi ku siiyey, talana saaro raxmaankii ku abuuray. waad guulaysan doontaa insha Allah. intaas ayuu nagu yahay mowduuceena maanta. walaal nagu soo biir, naguna dhiirigeli subscribe, la wadaag asxaabtaada fiidiyowgan. waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.